بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد أيها الإخوة، درسك وحن كذا رمضان قصة ما قصص بقر هذا القرآن تلمامي. رب سبحانه وتعالى القرآن كوحنا وتلمامي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصوينك أما ورارك شيكوينك كوصابسا وقور رمضتك با إله إليه سبحانه وتعالى لعلهم يتفكرون، وحي مدينين يفكران. أما أنت إلهي القرآن كقصك والرمي أيوحنا لي فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار قوة قاطة أما قوة قوسطة ضدك أركتدا وصاحبك أهو. قرآنك إن بدنوا كم دوا قصة وحين ورنكرنا إن كل دو ربع أما ثلث كل دو أي قصص قصص كاسي رب سبحانه وتعالى وحنا وقوى الرمي وح نرشين واحتروا له. قرآن كقصص كيسا انت بدل مرة وقوى الرمي كما مضنان بدل مصيوه dadkan meeshay joogi jireen waqtigii ay joogeen magacyadooda waxyaabahaas kuma badna. waxaan isku dayayaa markaa qayb ka mid ah qisaska quraanka inaan si guud isu dul taago anoo raba bal inaynu wax ka faa'iideysan karno inaynu eegno. quraanku wuxuu ka warramayaa nabi ibraahim iyo boqor qisa dhex martay fi suurati al-baqara. wuxuu ka warramayaa boqor kale oo muslima oo reer banu israa'iil dagaal geliyay. wuxuu kaloo ka warramayaa nabi yuusuf iyo boqorkii xilligiisii joogay iyo xiriirkii dhex maray. fi suurati al-kahf ilaahay wuxuu kaga warramayaa saddex boqor asxaabu al-kahfku boqorradii ay ka soo carareen iyo boqorkii khidr iyo nabi muuse doonta ay ka dalooliyeen ku socotay iyo dulqarnayn boqor la yidhaahdo. في سورة النمل إلهي وحكا ورمي سبحانه وتعالى نبي سليمان يبغرت كله لما دو بلقيس مقعدة كشغال ملكة الصبا. في سورة الصبا بغرطويد داود با إلهي كا ورمي. في سورة البروج أصحاب الخدود يبغرد أي قبيني با إلهي كا ورمي. وحكا الله كا ورمي فرعون والقرآن كان لحدا يتضوان من رد مقعيس وكسار ريلا واتنيا سدح سورة دودنا كتيرة كوا إنو شاقنا هورين تبدوا بغردي قال راها. وحكا الله القرآن كور رمي بغر الصالحين يغلو مقعد بالقرآن كور رمي. وحكم ده نبي الله سليمان يا نبي الله داود ذو القرنين الرجل صالح هي طالوت وبقرة إسلامية. بقرة بقى نصوت المملكة كوان بقى كمدة وصالحين وحكمدة كوة طايرانية من دكتاتر شبه أما وحقمادة يو وحلين يي كوة صالحين تاه صفات بالقرآن كوكا ورمي كوة وحقمادة أما سوى حلايا بقرة كلانا صفات بالك جواربا إذا لفتون وكاتبري كلا جديسان بغردك ودي نبضه الصالي سيدا ملكة الصبا إيوه بغرك النبي يوسف لكم يكو الله مده يكو دك ودي هلاقه الصالي. عموما وحن رواينا مسألة يدستوتا وآه قصص كم بغرادة وحا كورمي القرآن كالمكي جاءه. يعني ذاتك برضه وحي أما مستشرقين تي أفكارته ذاتك ورحنا يا وحي مودان إسلامكم مركي ورنا الدعوة كسلمية نبضون كورميسية توحيد ينتانن وها مركي مدينة لتغيين دولة بمدى مايا قرآن كله نص بندقية أسوش فكرية سياسية
iyadoo maka la joogo buu ka warramaya waxaanu taxliilinayaa boqorrada saalixiinta iyo kuwa taalixiinta labadaba xilligii maka la joogay usuusha fikriga ah sideedaba siyaasadda waxa lagu tilmaamo siyaasad dhaqaale social ama culumta bulshada culumta dhaqaalaha culumta waxbarashada iyo tarbiyada waxoo dhan markaynu isku soo duuduubno waxay ku salaysan yihiin maxaa qofka bini aadamka u fiican dhaqaale ahaan maamul ahaan bulsho ahaan bini aadamka maxaa u fiican su-aashaa in laga jawaabo maxaa bini aadamka u fiican waxay keensatay in la isweydiiyo waa maxay qofka bini aadamkaahi qofka bini aadamkii waa kuma markii la isweydiiyey waxaa yimi theories ama aragtiyo kala gadisan oo qofka bini aadamkaa lagu sifaynayo aragtiyaha kala gadisane soo baxay waxay yeesheen nudum ama nidaamo siyaasadeed waxbarashadeed dhaqaaleed bulsheed oo ku salaysan wixii qofka bini aadamka fikraddii laga rumaysnaa iyo wixii loo arkayay maxaa saalix u ah maxaa u suuban marka aan tilmaamo dadka badh waxay u arkaan qofka bini aadamkii inuu shar soconaya yihi filosofiga qayb ka mida waxaanay u arkaan waxaan oo dhammi inay yihiin wax qaydaya ama dabraya qofka bini aadamka waa usuul fikriyo jirta usuul fikriyo taa ka gedisane waxay qabtaa qofka bini aadamkii inuu muxaayid yahay warqad cad uu yahay oo wixii lagu qoraa unay ka soo baxayaan usuusha kale islaamku ku salaysay waxay qabtaa alfitra saliima abuur fiican inuu leeyahay laakiin sharki iyo khayrkaba aqbali kara asalkuse inuu yahay fitro fiican haddaynu eegno usuusha siyaasigaa ee islaamku uu sugaya waxa weeyaan bini aadam oo dham inuu makhluuq yahay rabbi inuu wada abuuray min nafsin waaxidana in laga abuuray naftaa laga abuurayna naf fitro saliima wadata inay tahay وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ومخلوق نفقنا لغا أبوري وحلوا أبوري فطرة صالحة فطرة الله التي فطر الناس عليها فلما آتاهما صالحا صالح نيه وحكروا إلهي إليه يقول كم بان مكانسيي سو معاشكي سينولشي سوغو سمجت ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أصوش السياسي إسلامي هل كان بيك انطلاق ده ما دام ملك الرب إسكالي أنا أنا ربك وأبوري إساقا كوسو در الرسالة دي حكومة يسي وحا عدو وآد نلشاذكم مع مليسو ألا له الخلق والأمر بإلهي إلهي سقى أمور كان له تلدنا له سقى أمور كلا وحبوري تلدنا سقى له دبتنا وحى الرب صادري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء markaan soo duudubo waxaan leeyahay siyaasatu saalixiin kaan ka warrami doonaa waxay ku salaysan tahay attaqwa wal-islaax rabbina in laga cabsado waxna la hagaajiyo rabbi looga dambeeyo siyaasadda kooxda kolaan iyana muxaadaro kale kaga warrami doonaa waxay ku salaysan tahay al-istikbaar rabbi inaan waxba laga qaadan سبوسكي ربي يسوي ويصدقه يسوينيه والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها وأما الذين استنكفوا واستكبروا يسوينيه كاسكو صلي سنته وحان مرك الربا قيم والبين سيجار كيدا وغورمه لكن قلبت وحان سيكوبا أصوبا دقيدونا أصوش السياسة السالحة يكو صلي سنته ee boqortooyooyinka quraanku uu ka warramay oo laynaga warramaya inay misaal inoo noqdaan ama duwalkii aynu ku dayan lahayn modelka role modelkii aynu ku dayan lahayn ayaa quraanku ka warramaya
quraankaasi wuxuu soo degay nabi maxamed aan dawladnimo gacanta ku haynin calayhi salaatu wasalaam maka iska dhex jooga laga xoog badan yahay waxba aan haynin ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala modelskan u tilmaamay qaabka kan dawladnimadu ay noqonayso waxaan markaa isku dayayaa inaan soo bandhigo adawaadka iyo waxay adeegsanayeen boqorradii saalix ee qur-aanku ka warramay ee dunida tan saytareeyay dawladnimada keenay qaabkaan usoo bandhigi doonaa markaa ma noqonayo inaan sheeko taxo oo hebelba halkaa ka boqor ahaa saasuu yeelay caynkaasuu yeelay sheeko ma rabo waxaan rabaa inaan tilmaamo uun niqaadka mushtaraga ama qodobada waaweyn ay wadaagaan boqorradaas oo dhami ee muujinaya inay tahay wax aanay ka maarmin dowladnimada islaamku uu rabee xoogani ama maamulka uu islaamku fahmi karee loo baahan yahay koo waxaan leenahay waxaa ka mida afarta qiso aan tilmaami doono afarta boqorrada gaaleed oo dhan lama magacaabin haddii aynan odhanayn jaaluud boqor buu ahaa ama kuwa islaamku uu ka warramo qur-aanka biasmaa'ihim baa lagu sheegay kuwa kale bialqaabihim buu qur-aanku u soo arooriyey kuwan biasmaa'ihimta la sheegay ee ah sulaymaan daawuud taaluut dulqarnayn waa maxay waxa common factorka waxa ka dhaxeeya ee ka wada muuqda qisadooda koo waxaan leeyahay waxa ka muuqda oo dowladnimadaasi si xoogan uga muuqda mas'alatu alcilmi waaltaqniya mas'alatu alcilm waaltaqniya cilmigu waxay yidhahdaan waa usuusha nadariga ah taqniyaduna waxay yidhaahdaan afgaaleedka markay inoo kala sharxayaan technologyga iyo cilmiga iyo taqniyada ama technologyga waxay ku tilmaamaan midna waa no why midna waa no how midi waa why waxaani u dhacayeen theoretically in loo fahmo midna waxa weeyaan how baa loo sameeya waxaan qaabkee loo qabta maalan gaadhiga cilmigiisa gaadhiga iyo siduu shaqeeyo waa nadariyad aad baran karto oo nadariyaad cilmiyoo la dhigo laakiin how loo samaynayo waa waxa mercedes gaar ku noqday uu mercedes u yahay volvana gaar u tahay volvoutay mid waliba noo how gaara buu maray oo isagu adeegsaday oo farsamaa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين رب وحلي سبحانه وتعالى مسألة العلم مكي لغا ورمي ولقد آتينا داود وسليمان علما نبي داود يا نبي سليمان علم ما نصينا يبقى إله إليه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وحانا إلى هذا محمدا waanu mahad celinaynaa rabbiga subxaanahu wa tacaala naga doortay ama naga kor yeelay ama naga fadilay in badan oo ka mid ah addoomihiisa mu'miniinta ah waxay culammadu yidhaahdaan halka kan waa mowdicu imtinaan waa gallad sheegasho meel ah rabbi markuu u gallad sheeganayay nebi sulaymaan iyo daawuud boqortooyadii lama soo horumarine masalatulcilmi baa la horumariyay bay leeyihin yacni wixii uu rabbi ugu manno sheeganay cid haddaad u manno sheeganayso manno sheegadka waa inaad gallad sheegataa waxaad u qabatay qofka markaad sheeganayso waxaad soo horumaraysaa waxyaabaha ugu waaweyn kuwa yaryabaad dambaysiisaa waxyaabihii ugu waaweynaaye ilaahay uu gallad sheegtay sulaymaan iyo daawuud waxa kowka oo qur-aanku uu tilmaamay cilmi iyadoo aayaad kaloo qur-aana ilaahay ku tilmaamaya in labadaba boqortooyo la siiyey culammadu waxay yidhahdaan meesha tani waxay tilmaamaysaa cilmiga iyo fadligiisu halka uu ka joogo umuurta dowladnimo siyaasad iyo ummad hogaaminteed cilmigani ha ahaada kii nebinimo ee la siiyey ha ahaada kii maamul iyo taleed iyo caqli ee rabbi uu siiyey subxaanahu wa tacaala nebi sulaymaan markuu sheeganayay isna wixii alla siiyey wuxuu uhi yaa ayuha annaasu cullimna mantiqa tayr وأوتينا من كل شيء سقوا وحشاغني وحلا يا أيها الناس دضوا علمنا منطق الطير وحنا لبري أفشم برات وأوتينا من كل شيء وحول بنا وحبانا لقسيه وتلمامي
wuxuu horaysiistay bay leeyihiin afshimbiraad in la baray aqoontu qiimaha ay leedahay isagoo tilmaamaya. nebi sulaymaan shimbirtu afkay ku hadlaysa buu garan karayo rabbi baray. waxaa qur-aanku uu inoo tilmaamaya dowladnimada sulaymaan oo dowladnimo aada u xoogan ahayd aqoonteeda inay ka mid ahayd basharka daaya inay la dhaqmi karto markaa noolahan yaryar ee shimbirtu ka midtay. waxaa kaloo qur-aanka warramaya inuu la dhaqmay quraanjo. rabbi wuxuu leeyahay wuxuu maqlay quraanjo leh yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtamanakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowliha baa ilaahay wuxuu maqlay quraanjo. quraanjadu waa xayawaanadan gruubka u nool oo maamulahoodu uu leeyahay ama mid ka mid a ay leedahay quraanyoy nebi sulaymaan iyo ciidamadiisu iyagoo aan idin dareemaynin iyo idin marine guryihiinna gala. meesha waxaa ka muuqata inuu af quraanjada fahmi karayay, waayo ilaahay wuxuu leeyahy fatabasama daaxika min qowliha. waa dhoolla caddeeyo waa muusooday isagoo qoslayo warkeeda ka muusoonaya amase ka qoslaya. waxaa qisada nebi sulaymaan ka mid ah oo rabbi subxaana wa tacaala uu ka warramaya nebi sulaymaan oo u baahday carshigii balqiis in la soo qaado, dabeetana koox hortiisa joogta ay ishayso. cifriit min aljin uu leeyahay intaanad meesha ka kicin saacadka shaqada inta aad ku jirto baan keenayaa carshiga. rabbi subxaana wa tacaala cifriidkaa jinkaa mid ka xoog badan baa laga warramay. kaasi wuxuu leeyahay working hourska saacadaha shaqada gudahooda intaad shaqada ku jirto ee aanad ka kicin xafiiskaaga baan keenayaa. laakiin ilaahay wuxuu ihi waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. kii cilmiga kitaabka la siiyey ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbiriqsi in leeg. kow kan lama sheegin ma jinba ma insiba ma malagba waa noocma. waxaa lagu tilmaamay sifo sheegisteedu ay ku filantahay isaga sheegistiisa. waxaa lagu sifeeyey inuu yahay alladii cindahu cilmun min alkitaab. aqoon-yahan baa lagu tilmaamay, waa aqoon-yahan kitaabka yaqaanay baa wuxuu yidhi aqoon-yahankani inuu malagii inuu jin yahay iyo inuu cid kale yahay ilaahay kama warramin, laakiin waxaa laynoo sifeeyey inuu aqoon ahayd waxaanu wax ku keenayay. aqoontan wakhtigaa taagnayd ee nebi sulaymaan iyo ciidamadiisana la siiyey waa aqoon aan maanta dunida oolin. waayo sariir boqortooyo in saba oo yaman ku taallo laga qaado oo la geeyo falastiin oo nebi sulaymaan deganaa oo lagu geeyo ilbiriqsi. aqoonta bini aadamka iminka wuxuun bay awoodaa only mala haddii loo diri lahaa asa signal. waladiinii kombyuutarradii iyo telefoonadii waxaan ka warrami jirtay yacni asa signal haddii inta carshiga la dhalaaliyo signal laga dhigo oo la sangareeyo dabeetana within milliseconds dhanka kale receiverku uu qabto dabeetana dib loo amaamudoo la shaaciyo. that's the only technology maanta mala suurtagal ahaan lahaa in ay samayn karto. laakiin rabbi wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. waxaan keenaya idan meesha waxaa la tilmaamay wakhtiguu ku keenaya iyo cilmigii. know-howgii laynooma sheegin, laakiin waxaa laynoo sheegay waxaa ka dambeeyaa inuu yahay maxay aqoon. qisada nebi sulaymaan waxaa kaloo ka muuqata haddaynu nidhi aqoon taqniyana way ka muuqataa farsamo technology. waayo gabadhii markay soo islaamtay nebi sulaymaan wuxuu iyo kooxdiisii waxay amreen in la sameeyo sarxun mumarad min qawaariir. dhismaa la sameeyey, quraarad baa la saaray, waxay odhan lahayd biyaha hoosta laga mariyey. qaab bay dhalada tani u samaysanayd aanad dhalinnimadeeda arkaynin ee biyuhu quri kuu muuqanayaan. dabeetana qofka dul maraya qofku markuu meesha soo bilaabo wuxuu sodhanaya biyaad maraysaa idii ka faydo ila biyuu arkaaye. dhaladu waa transparent aan muuqanayn, markaa biyaha markuu is idhaahdo dhex mar qofku wuu faydanayaa. boqoraddii waxaa la yidhi qiila laha dkhuli sarx
نهل كان مربى الغير فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها بإلهي مركي أي ماشى صامرتي وحي ليسي مال وضنا الدب يكتشران دبتنا لماذا فايدتي قال إنه صرح ممرد من قوارير وحلويري وعد اسمه ممرد ممرد يعني وحويا أمرد لقدري سسبعة very smooth corrugation aan lahayn qoladii farsamadu bahashiina ay saar jireen marka la saaro waxa weey waa dhismaanu ka muuqanayn siman oo min qawaariira ka samaysan baa leeyahay quraanada ka samaysan idan waa technology muujinaya biyihii inaad garan karin meeshu inay biyaha rasmiga yihiin iyo inay dhalatahay aad garan karaynin quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa nabi daawud كو آيات واكين حق هرق سامرين علم لسيه ولقد آتينا داود وسليمان علما تقنية مكة لك ورمي القرآن كوحك ورمي يا محي وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وألنا له الحديد وحنوتش العنباء لهي حديدك آيرانك دبتنا وحلوين أن اعمل صابغات وقدر في السرد واحد سميسا دروع صابغات قلب كان لغو دقال قاله سيفتا إياه واحد كان علين إياه وقدر في السرد حلقة يدنا واحد هذا النبي داود فرسمدي وقوه الرئيس باقري وهو روح القادين شري بر اسكت حن لكن برتا إن لقدقه حلقات يرير سيركاليس يرور الله يسرسره وسلسلة يرير لقدقه سلسلة أمورا كي سيف تطور قالي كريم لكن شركة ودنا لغو قارن كره سلسلة دينا نقطة وحي سماينيسا flexibility شركة وحيلا يأيمو إلا وحوا سلسلة وكلا داغا سينو دغدغاقو وقفك الدقال كسيفي عنه قالي كره وحي كلا سماينيسا إنا نسوه قالينا محي بحلكي وحي كلا سماينيسا إنا فضوضاته وبرتو دم هدين ملاسنان لهي دميلها ندلدلو دا وزني باهري ميسان كي برد معلومية إذن وتكنولوجي عصر وتكنولوجي مركا ياليك قديسن هداي تهي فضي هداي تهي كوست كوكا يرانيا كي هو قيمه يرانيا هداي تهي فلكسبيليتي يو سيدو قفكو دغدغاقا كريو ترا بدانيسا فرسمه عصب بو سمي سيده دبنا adduunkana maanta aragta wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo technology-gan cusub ee arkaysan dhamaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo birta in la tumi karo aanay jabinna 19th century bay dunidu bilowday production-keeda tirada badan leh birta in la adkayn karo ama steel laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasayo iyo noocyadkeeda industry-ga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo qaybihii ugu horreeyay ee taariikhda sayniska taariikhdiisa haddaad dib ugu noqoto ingiriisku markii ugu horreysay birahan yar uu samaynayay suulishku ka soo qaateen tijaabo yaroo aad u liidatay ahaayeen laakiin tijaabooyinkaasi waqtigay guusha gaadheen baa industry-ga weyni bilaabmay waayo industry-gu dhammaantii hadday hubtay hadday wax kala tay everything birku ku xidhan yihin birta in lala tacaamuli karaa waxay sheegaysaa inay tahay technology-ga asalka ka intilaaqo ilaahi subxaana watacaala nebi sulaymaan wuxuu tilmaamayaa waalanaa lahu nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid nebi sulaymaanna ilaahay wuxuu leeyahy waasalnaa lahu cayna alqitr waxaanu u dhalaalinay baa la yidhi cayna alqitri nuxaasta ويعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بل القرآن كوحة المامية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلهي وحي إسراعي رسول الله صوت دري كتاب كي ميزان في عدالة الله صوت دري هي حديد كين إلهي سود تشيبه إلهي السراعي la tilmaamaya inay noloshu labada tan ay ku salaysantay idan waxaan leenahay markaynu u fiirsano qisada nebi daawuud iyo nebi sulaymaan waxaa aada uga dhex muuqda masalatu alcilmi waltaqniya markaynu u fiirsano qisada dilqarnayn
وحين كنا حركنا إلهي ولا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا دولك أنه مكان سين لبالي دولك أيها قعنت اللوغليي شيء والبنا السبب بالوسي إسنا السبب تيب الراعي كو وهرب بالتلمام يا تكنولوجي واقع يا لينه قامني وحقال له تلمام يا قرآن وحكا ورميا إنه ذو القرنين قلبات يقرأ حاجة كان على قبطي صار نغضي بري حاجة كان على قبطي كان نغضي قيد قوي وكلا علماء كل شيغان وقعي ما لا بوراده قرا ما دغن oo dhiba haysato oo koox Yaajuuj iyo Maajuuj la yiraahdo ay weeraraan nafta isugu keeneen inuu tagay dabeetana waxay weydiisteen ama kharash ku yaale Yaajuuj iyo Maajuuj nooga samee teebba kala xidha wa ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka waramayeen markaas yiri aatuni zubra alhadid hatta idha sawa bayna sadafayn qala anfukhu حتى إذا جعله نارا قال آتوا أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وعن رب الله الردل بسمي ردل كان هو دربي كان قرآن وحكت الماما يسيد سمي إلا رب ورد حدود أيها الرباين تات كان بسه تات كان تاريخ رأيته إنه قرأنا واتدك يوجه الرأي حديد له استعماله دون إنه ما أنت تشوفنا شن طبق وحكة بدن لما بس يشيرين يافر طبق يوم لها سيسنا يوروب تهري قديم كاكو أركتين ودن أنتي أنا لبرانين برتا يسبر كاين لسكودرا أنت أنا لبرانين برتا الله استعمالي كره باسمها تكنولوجيا الدنيا وحها دقحنا هدير يا والله ما تشوف كذا والله ما كل حد قارين يسوي دميو wiilkii keenay birta tan iyo sida Ingiriiska joogay waxoogaa inta walwalaaqay markii dambe New York tagay New York daarigii ugu horeeyay dhaadheeraaya la dhisay 20 dabaq bay ahaayeen mucjiso ay haydin 20 dabaq la dhiso dowladda dhan baa u daawasho tagaysay New York 20 dabaq laga dhisay 20 ka dabaq ninkii ku guuleystay wuxuu keenay technology aan birta sulb laga dhigi karo steerinta laga dhigi karo in dhismaha loo isticmaali karo quraanku wuxuu ka warramayaa Dhul Qarnayn تكنولوجيا دربي إن لا دسو يدبر لا أديكسنيو دبتنا لما بورود نحدود بوح سمين يدرب كبسيا درب يسوع حلو حي كان تنزبر الحديد برتو لجوجوين كان برتو ما شاء قاب كي إنجنير هو وقلامك على صاري كدبنا ضبو خشري برتو مركا يكون الله تعداتي كدبو وكاني قطر من حاسبو خشري birtaad keenshiyadu inta badan waxay ku xiran tahay materialka lagu walaaqa marar badan ama carbon ha noqdo nickel ha noqdo waxyaabaha kan sida la isugu walaaqo wuxuu sameeyay derbi biro go'an ah oo dabeetana la gubay oo dabeetana lagu shubay nuxaas oo ka dibna sisib noqday rabbi wuxuu ku sifaynaya derbigan laba shay marka hore waa meel aan la kori karin oo sisib ah very smooth waa meel aan qaab loo fuulo lahayn oo dheer marka labaadna waxa la yidhi naqbigu kama suurtagalaha waa dur la adkeeyay oo aan maxay wax lagu direelgareeyo aan loo haynin ama qaab loo dalooliyo marka lamana kori karo lamana daloolin karo quraanku tilmaamaya idan waxay tilmaamaysaa Dhulqarnaynkii dunida sida tan u maray inuu wuxuu watay cilmiga technology ay ka mid ahayd waxa kale oo quraanku inoo tilmaamaya Taalut markii boqorka laga dhigay reer banu Israa'iil baa qololaysay dabeetana dhulkoodii baa laga qabsaday carruurtii wixii baa la qabsaday nabigoodii bay yiraahdeen rabbi noo weydiin madaxna loo sameeyo waa dagaal galaynay dabeetana ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigii la joogay markuu rabbigii weydiiyay waxa la yiri Taalut ninka la yiraahdo madax la idin ka dhigay Taalut ilaahay wuxuu ku sifeeyay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna allaha astafaahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم رب يدين دورتي وحانا لسي ديرات علمي يجرهان بقى وحين لنا مكان صوت وضوبنا ملوك القرآن قلت المامي سليمان داود ذو القرنين طالوت وحكم مغضب بورتوين كان وحي كوك عينا كهرو مرارين وكمدية كوى العلم
والتغنية بل القرآن كوحو إنو شيئا عموما با مركي إلهي نبي آدم أبوري إلا وطلق لي آدمه إنو بلك كان هانتو الدقو إلهي يقولي إني جاعل في الأرض خليفة خليفة داسي ملايكة وكيو وركا كامي ما الدنبيلها وحان قفك بنادم في النوع عكرة رب سبحانه وتعالى وحكو عجز قلي وملايكة وآدم لبري وآدم لو قد إنه خلافة دولك كان هننكره محايا هي ورحمة في المامة وعلم آدم الأسماء كلها مسألة العلم يا آدم كانتي مؤهل ككواد إنه خليفة الله في الأرض إنه نقوم كراه دين هان إسلام كوحي نوبنا هي قرآن كيوه الرئي النبي محمد كسودقي دواء اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قرآن كيوه الرئي النبي محمد كسودقي واحد صورته بيئة أما environment أما الدجان بنشر أم وحقرين أو وحخرين وبوك هيسن وقال لهين ولايبرير لهين وسكول لهين وجامعات لهين ووحبرشاء أقوم وقبل يجي افتح النمذج السقوف هانته بلشدس عين كاوئك وحي جاء الله صدري كواد النبي محمد للربي نكوه قامية وحلا قبل هذا إنه علم النقضة عند اللي يسأل النبي أمي عليه الصلاة والسلام وحنا آخرين وحنا قرين وحاي تلمامسا كهديه ركوعه لقى ورميه لما طلبك الله صهر قاضي وكمل هاي مسألة العلم مسألة العلم إنه كمل هاي سيدا أوجد سؤال وينه كبير بطل الله علمي يقاب كل هذه السنة لكن وحين لنا هاي ملوكتي قرآن كور رمي العلماء قارئ إليه وحي كمدين ملوكتي الدنيا بالسيطرة يسيد دولته هو ويناي الدنيا ودن كتليه ذو القرنين سليمان يملا سيكون المامان أستانتو دا كوادا كم مغطى ومسألة العلم والتغنية علمه إنه كورو قاضو الدولة بمدى وحكية هي أنا يرين الملعسية واحد شرب بابر وقري نين مسلم الله يلاحظه دكتور MIH فاروقي هندي بن رجينا يا جامعة لكنو هندية كطالب ومتقاعد كيهي بابر كيسا وحو كغا ورمية وحلية هي بول ريسيرش سنتر ومال علم بارس ومرايكا كطالة أيا وحي كورمتا يقولوا هي قبع بني آدم كمان تأدوني ده dabeetana waxay yidhaahdeen dunida maanta aynu ku nool lahay waxa muslimku ka yahay afartii qof ee meel soconaya midba muslima waxay ku tilmaamayaan 1 bilyan 570 kun oo qof inay muslimiintu yihiin waa research kaasi hay'adda Mareykanka ku taalay soo saartay tamacneedu waxa weeyaan 25% dadka dunida ku nool baynuna haddana waxa la leeyahay marka aqoonta cilmiga science iyo technology-ga ama cilmiga iyo taqniyada marka la eego dunida xagga ugu dambeysay inuu kaga jirnaa xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda marka la eegana waa layna marginalize gareeyay ama dad aan wax ka soo qaad lahayn maxaafisha dhaqaalaha iyo siyaasadda baba caalamul islaami yahay waayo waxay soo qaadeen والGDP يعني هو gross domestic product وحصاصات بني آدم الدنيا دورن بشر كان 1 بليون الدنيا الصارن سنة وحصاصات في سواء مصر واحد هذا سنة بني آدم كان الدنيا كور صارن أردمي 1 تريليون قيمه سواه ودقمه أي صارة 1 كاسيت تريليون بيلين مسلمين تن دنيا أفرتي قفبا مدعاه 3 تريليون بيسو صارا لحدن كتريليون دنيا وحساسار كذا مسلم قدام مركا الله يسكو درو 3 تريليون مركا عندي بقول نغضي محل إذا
IMF iyo World Bank kama foga xisaabaadka halka ku sheegayaan waxa ay dhibayaan 3 trilyan si kale hadii loo eego bay leeyihiin bilyan iyo barka muslimka ah waxay ka wax soo saar yaryihiin 70 milyan Faransiiska ku nool bilyan iyo barka muslimka oo marka la isku daro dawladda Faransiiska GDP-geeda ka badan muslimka joogo dhan marka la isku daro bay yiraahdeen 120 milyan Jabaaniiskii waxay soo saaraan nuskood bay soo saaraan ولا 20 مليون جابانيسكا ayaa ku laba laabmaya muslimka dunida joogo dhan waxay soo saaraan ama se waa 1/5 wax soo saarka dawladda Mareykanka 300 milyan marka 5 meelood loo qabiyo meel ahaan ay wax soo saarka dunida muslimka oo dhan soo u dhigma si kale hadaan u tilmaamo kristanka oo tira ahaan dunida ka 5% wax soo saarkana waxay ka yihiin 70% waa maxay sababtu isla baxtiga ninkani qoray aan dhanka layda ka tusiyo marka bini aadamka laga waramayo bay yiraahdeen caalamka muslimka oo dhan marka la isku wada daro science field-ka sanadkii 500 qof bay soo saaraan bay yiraahdeen 500 doctor halka ingiriiska qori 3,000 doctor ka soo baxdo si kale marka aan u tilmaamo 1901 ila 208 laga soo gaaray 107 sanadood Nobel Prize ki science ka la qaatay marka la eego yuhuuda oo 15 milyan meelaha si yani waa 0.2 ay tirada adduunka ka yimid waa 1 wax ka yar 1 shan meelood loo qaybiyay meelahan ayay tira ahaan dunida ka leeyihiin Nobel Prize kana waxay qaateen 140 Nobel Prize science ku saabsan 140 bay qaateen halka dunida muslimka oo dhan fiidka science-ka marka la eego laba Nobel Prize qaatay labadii haddana midkii Bagastaaniga ahaa waxay Bagastaan qortay inuu Ahmadiye yahay inaanu muslim isna ahayn xabadda ku soo hadhay markaa muslimka gabigiisa xabadda ku soo hadhay marka la eego waxay qaateen Shanghai University waxay soo saartaa list jaamacadan China ku taala ay kaga waramayso 400 ee jaamacadood ee dunida ugu sareeya marka laga eego xagga research iyo study-ga xagga waxbarashada iyo cilmi baarista 400 kuma jirto hal dawlad oo muslim jaamacad ay leedahay يعني علمي إني دمبيان يا قوانت الدمبيان بوحيابه كانتي وحكم إذا ما نذكرنا إني دبض الدنيا النقدان إن وحصاصار كود النقدة 7 تريليون سكر هذا هو يابا وهذا المسلمين تدوني ده هرجامين يصير أمر القلبات كتاريخ تمر كيديا وحي كتب المامان ميديفيال بيريد قال يتضبط كسوقات الله اللي يطبناد لقسوا قاريا وفي طبناد ميلاس ninka taariikhda science-ka qoray ee la yiraahdo Gillespie waa nin science history-ga wax ka qora ayaa wuxuu leeyahay waqtigii medieval period 130 aqoon-yahan ee dunida ugu raadayn badnaa buu qoraya 130 aqoon-yahan ee dunida ugu raadaynta badnaa medieval period-kii 120 baa dunida muslimka ka yimid buu yiri afarna Yurub bay ka timid lixna dunida kale ka yimaadeen يعني بقولي صدق كي أقول يهني وأنا معترف بالدنيا كاها بقولي الله تبع عالم الإسلام كيمي that's why أيوة هايين دولة الكواد الدنيا هو كامنيسي هاي بقولي كنت كسائنسي أنا ما أقول يهني الدنيا شوي أيه بقولي الله تقول هاي يوروب ولا بنا فرضي كل هاي وحقوريا وكليس بايوه أقول يهن غير قلبه سكال هذا مو أجنبي بيت المامية ودن كان إسبان لا يراهده GDP-ga waa wax soo saarka Spain ay soo saarto ayaa wuxuu ka badan yahay 12 wadan ee petrolka leh Carabta Spain yara aragtay ee hadda Kristanka Spain taasi markay muslimka ahaydna wax soo saarka Yurub oo dhan bay kaliya ka badnayd
Spain taasi markay muslimka ahayd markay muslimka ahayd waa goorma waa Qurtuba iyo kuwaasi markay dunida hogaaminayeen aqoonteeda waa markay jaamacaadka ku yaala Henry boqorkii Ingiriisku waa ilintiisii iyo labada kale boqorkii Ingiriis iyo Germany afar wadan oo Yurub ka mid ah ninkii boqorka ka ahaa ayaa waraaq u diray inanta scholarship-isiiya waa tuu dhalay afar wadan oo Yurub oo Jarmalka iyo Ingiriisku ku jiraan ninka boqorka ka ah ayaa waraaq u qoraya Spain boqorkii muslimka joogay oo wuxuu leeyahay jaamacaadkii aad bay fiican yihiin waa kaasee afar qof baan ku soo diray guriga boqortooyada ka mid ah scholarships markay Spain taa ahayd oo muslimana Yurub oo dhan bay ka badnay GDP-geedu bay yiraahdaan taa macnaheedu waxa weeyaan quraanku afarta aynu ka soo qaadanay waxa ay tilmaamayaan markay aqoonta hogaamiyeen bay dunida hogaamiyeen nabi Suleymaan nabi Daawud طالوت ذو القرنين كواس تاريخ بينك جوكتا يا تاريخ دي هربنا waxay inoo tilmaamaysaa cidda hogaaminaysa aqoonta iyo technology inuu ka mid yahay cidda wax hogaaminaysa qodobka labaad aan qaadanayna wuxuu yahay aqoon iyo cilmi haddii la helo kuma filla hogaaminta bini'aadamka iyo dowlad wanaagga aan raadinayno waayo aqoontu waa midi laba af leh waa xagga loo adeegsado aqoonta waxna waa lagu xaaqi karaa waxna waa lagu dhisi karaa waxaan oran karaa western society markay aqoonta heleen dunida kale way ku gumaysteen isticmaar bay dunidoo dhan ku qabsadeen wixii hanti la lahaa waa la gurtay waa la soo guray aqoontu waa quwwa horta maanta Japan waa wadan aan waxba wadankoodu lahayn Japan waxay sameeyso dhan dabad bay ka keentay raw material wadankeedu waa waxba kama jiraan haddana waa wadanka labaad ee dunida ugu dhaqaale badan Mareykan oo ka xoog badan waxay saan ku noqotay aqoon Japan mararka qaarkood Australia steelka birta ay ka soo rarto time-ka si looga faa'iideeyo markabka sida ayaa sameeyo warshadu saaran tahay dekada labaad markuu ku xidho iyadoo steel abu iibiyo stainless steel iyadoo abu iibinaya waxa la diiday in saddexda bilood oo badda ku soo jiray markabka weyni uu raran yahay in waqtigu ka lumo Japan wixii dunida inta isku qastay lacag ka sameysay idan technology waa xoog waa quwwa laakiin waa quwwa duu xadayna quraanku wuxuu inoo tilmaamaya ذو القرنين سليمان داوود طالوت أقومتين ويدكسدين لإصلاح البشرية بنا آدمكم يسدوا الليبان لها كمي قميسنين أو حبايا الطريق ولذلك ما قرآن وحينا وقوى الرمية ذو القرنين وحكو صابح ضد متخلفين ضد ضمبايا ما وشا وحبا قرنين ولا يكادون يفقهون قولا وحكو صباح يدول قولك حق بدنا يرفيسو waxay dhaadeen hantaan ku siinaynaayee nimankan wax naga sameeyo adiga technology wax wata wax noodis waxu yiraahdiin iska hayst anta haysinina laakiin waxaan rabaa binaadam efficient ayna noqotaan xoogiinan ka faa'iideynayay xoog igu gargaara farsamada aan siinaya وحكموا قادنين أقونتي وتوحبوا كتري بشر كله هل كمركا أنا وضن عقائد دينتي عدالة أنا وضنين أقونت بدك الوجو ميستو وستر السوسايتي أقوم بيهلين لكن دنيا وحكومة يترين دنيا ويكوجو ميستين دنيا أنت هذيك كلام ويكوجو ميستين إذا وحلا نحي أقونت وين إلا صعطة شيء كنت المام إنه عدالة هي العدل عدالة مطلقة عدالة عن باوندري عن حدود لهين مكان عدالة المام يكون وعدالة مخلوقة وير هي خالقة انت بلو عدالة سمينه خالقة ودو عدالة سمينه سوا محي حقوق إلهي إلينا الله ضفرين
واحد مغشى حق بني آدم human rights كيف اللي هو حد قد إلهي أمورتي حقوق دي سيسا كورا دي بشر ويسكت يا إلهي حقوق دي سيسا كو حد قد إذا وحنا لنا وحقوق ري حق التوحيد عدالة تاسا وغوه الرئيسة وحد عدالة سكتي إلهي هذه أكو أبوري دميدان أبورتي كو كان سكالي مركات وقلاته إنه لا له الخلق ولا أمر يهي إنه الأمور كيسوي ليه هي ما ملكنا ليه مركات وقلاته إنه يساقو ككلي إلا عابده ويهي وكلمة التوحيد أفرتا بغور القرآن كوكور رمي الصالحين تهافرت بوحي ودادان كلمة التوحيد أفرت بوحي ودادان إنه يقول يهين رب السماوات والأرض إلا هو قاسمه وحي ودادان وحي قعنته ودى الصوت لين يعدالة سمايا إلهي يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط داود تدك خليفة لغا غدغ مدحبا لغا غدغ فاحكم بين الناس بالحق ولا تشطط ددك حقك لحكم أحد قلبي ولما امتحان بل مريا سيدة القرآن كوين وقوى الرمية إن لو أننا يوي مادين ومدو يريد وحن لا 99 نعجة مدين النعجة واحدة ويجهد البديو وكاسي أو دبتنسي وفي حكومي وهي علماء الماما وهي مسألة هيدي إن ثيوري قرآن لبرين براكتيكال لبره سيدوا عدالة سمين لها فخر راكعا وهركوع إلهي بوطوبتك رواق بلي قرآن كوحينات المامية حتى إن النبي سليمان عدالة كل كمية وحل قدر يمي كرابي إليه إنما القصة وهذا الشيء قرآن شد محيطري قرآن شد محيطري يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون والقرآن يوي قولي قلبي هذا يو سليمان يعيد مديس إن الليل لكن وقورمه وهم لا يشعرون يوالد الدريم محامي شكا موضة سليمان يعيد كيسو إناني يعيد ليس كدل ولا بردفا يحق درك الدلين لكن تم قرآن شاهي وحي كور ورسنتهي عدالة سليمان ويوقوش هي لكن سواء بريمين أما يدان لوغين لغتن طابت المامسة وحا عدالة سليمان المامة وحا كم دمركو شمبر كوايم حيري وحشاد وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين شمري مكو بعد باري شمري الهدهد قوقولا لا يرهدوا وايين قوقولي وحيري أما وان عذابي أما وان قورعي أما حجو ليبا يعني أما حجو كان سنة ما عقابه هلي بالة المامية أمر لام بحي عيدا كيسوان كامر قادة دولد وحبكو وقيمو كتغي دم أما حجو كان سن أما ولا عقاب الدورة شمر كي يرى مركو يمي أقوم بوشيكت نبي سليمان أقوم بوشيكت ورانا هاي جئتك من سبأ بنبأ أحط بما لم تحط به وحنا يدوب كوبين ما صوكو بيقولي أقويها بانا هي نبي سليمان الرماء أنا دوبين بان سوء بعد ماشي الصبر لا يراهده أيان نبأ يقينا ورنبك ودابويل دبتنا واكي محاضرة لنا خرية كسابسا خير سبا بقرب هيستا ييني عدعيد عابدان ييناني رب قود عابدني أرقا واكي كهضلي وحموقتا النبي سليمان إنه يلب الله بني واحد شيء سينو شرطها ييني بنتي وراق بودي بقصة إنه نقانا قرآن وكورمي وحكم موقتا النبي سليمان حتى يسقوا أنفصحين ومركو هوري فسحانو كتجين لكن عذر دار لوتشك مركي وكانينو كأقبلي ونوع من العدالة عذر دار معقولة مكانة مركي هوري فسح مهلي فسح لا مقبحة لكن مركو يمي وحلوتشك مكانة ولا أقبلي كره النبي سليمان هو كأقبلي وها عدالة القرآن كو كتلمامة يا مسائل كان إنه كان حركينك وموضة إلهي سبحانه وتعالى ذو القرنين وحو كتلمامة إن أود لسيي دبتنا ليلي وحا أدون تكيل في سورة الكهف سيدة ربك قوى الرمية وحو كل جواب ذو القرنين مركا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من أمره يسرا. ذو القرنين إلهي وحليه سبحانه وتعالى مركي ليلي حكم هذا هستيق وحد دون تكيل وحولي الدكة وعدالة سمينية عندي ظلم السميسة وكقوينية آخرنا الرب هرتقي وكقوين عندي إيماني عمل صوبا لك السمينة فله جزاء الحسنى أبولي أبا المرفي عبنو لأنه الدكة عدالة من قوانا غم يا أبولي عند ولدوحي جيسته أيها أبا المركب النغنية waxay tilmaamaysaa quwadiisa iyo xooggiisa sidaanu u xoog sheeganayna markii yaajuuj iyo maajuuj qoladii fahal najcalu laka kharjan markay yidhaahdeen inuu ka ogolaaday yani waxaan leenahay cadaaladdu oo ugu horrayso iimaanku ilahay inaad u cadaalad samayso aakhirana rumaysateed aakhira waa miisaanka ugu weyne cadaaladeed aakhira iyo alle waayo qofku wuxuu rumaysan yahay imika uu kaa xoog badan yahay wuu ku dulmi karaa dowladdu waxay doontay samayn kartaa laakiin wuxuu rumaysan yahay rabbi ka xoog badan oo isagana jajgarayn doona maalin qiyaamo la yidhaahdo isa soo hortaagi doonaa inuu jiro idan waxay keensanaysaa inay cadaaladda kugu bixiso tawxiidku waa sababaha ugu weyne keena cadaalad inuu qofku rabbina rumeeyo maalinta aakhirana rumaysan yahay إنسانكم مركو الرومين تاسي ويحد قلوب كبلابا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى من آدم قوق وقابا ليري مركو وأركه إنه غير نغضه غير من نغضه لكن سيجا اسموتسيي اسموتسين تاسي قفك هدايق الشبه ليري كبكو بلابا وحيم لنا هاي وحيم كنا حركة كنا قصة تنوك لو كمده boqorrada tan uu quraanku ka warramay maamulka waxay u arkeen inay mas'uuliyadda uma arag inay maqnamtay yani waxay u arkeen inaad madax noqotaa inay tahay imtixaanka in lagu badiyay dunida qofka muslimka aragtidu ka aaminsan waxa weeyaan inuu mumtaxan yahay mubtala yahay ibtilaagaaguna wuxuu ku xidhan yahay hadba meesha lagu geeyo iyo waxaad haysato dad xoolo badan haysato imtixaan tiro badan umaad gashay weeyaan haddaad madaxnimo hesho madaxnimadu waa imtixaan adag qolada tan afartan boqore qur-aanku uu tilmaamay waxaa laynooga warramaya inay madaxnimada u arkayeen inay mas-uuliyad tahay wax la isweydiye inay xil tahay aakhiro lagu xisaabinayo ee umay arkaynin inay tahay maxay maqnan meel xoola laga helay inay tahay idan waxay ahaayeen madax التعفف عما في أيدي الناس كل رميسي قعنت الضدك وحا كتير كدور سومية قرآن وحينا وغور رمية نبي داود يا سليمان يا بغرطو يدود السيء وحوق برنيد هدنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول نبي داود كور رمية وحا ونبي قولي كان يأكل من كسب يده بغرطو يدن يا مامل كان يوحا ودن وحبكو بقى عدن شرين بئه gacantiisa wuxuu ku tunto farsamo yaqaan buu ahaa wuxuu sameeyuu gadan jiray oo cuni jiray kasabka gacantiisu cuni jiray ee maamulka waxba kuma cuni jirin baa leeyahay waxa quraanku inoo tilmaamaya gabadha tan malikatu saba markii uu timi warqadii nabi sulaymaan innahu min sulaymaan innahu bismillaahi arrahmaani arrahiim alla ta'lu alay wa atuni muslimiin waraadi qoray كبرنا إنكم مسلمين كاليا قبل تاني واحد كيف فكرتي بل سيدا ولا نقبل هاي دبتنا واحد لا تشتي دتكي طلق بينك يدواها والله طلق بينك واحد هذا وان حوق ويني عد والبنا ونسكي عليك كرنا أرنتنا أذان وكود ديني قان كجاد سلان عقل بدن بيه هذا قان بيجاد بل إنه يتحانته سليمان inuu nin wax islaaxinaya yahay nin adduunyo doona inuu yahay adduunyo doonku bay tiri in almuluka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha dilla wakadalika yafcaluun marka waxaan taskaraynaa bale waxaan itixaamaynaa bal mowqifku hunguriga ka taagan yahay waxay tiri adduun baynu u diraynaa innii mursilatun bihadiya fanadiratun bima yarjicu lmursaluun bay tiri hadiyad baan u dirayaa xoolo
waxaan eegayaa bal xoolaha wuxuu kaga soo jawaabo ilaahay quraanka wuxuu leeyahay falamma jaa sulaymaan qaal atumidunani bimaal fama aataani allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun xoolihii markii loo keenay nabi sulaymaan wuxuu yidhi ma xoola ay u keenteen oo hadiyadiinnan iyo waxan baa la timaadeen waxaa laysiiyey baa ka fadli badan waxa kan idinkuna waxoogaagan adduunka iyo hadiyaddaa ku faraxsantiin waxay tilmaamaysaa inaanu mansabka xoole ku doonaynin iminka waxaa laga yaabaa inaad aragto siyaasiyiinta mansabka doonaysoo dhami waxa uu raadcaynayaa inay tahay it's a business suu lacag uga samayn lahaa ama reerkoodu siduu reeraha kale u boobi lahaa ama sidii uu wax loo qaadi lahaa wuxuu waa business afgobaadsigaa la yidhahdaa ummadda horumarkeedaanu doonaynaa iyo midnimadeeda iyo kan waa sheeko waa business uu doonayo in waxna boobo waxna dhaco waxna helo lacagna u qaato ama tan qur-aanku uu ka warramay waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin adduun waxay madaxnimada u hayeenna inaanay adduun ku qaadanaynin qur-aanku wuxuu ka warramay dulqarnayn oo ay leeyihiin maxay قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا العقبة نقصيرنا بيلين خرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا تكلموا تجيبا هاي ستايا أنك يجينا الدرب نور حيسيسو بانو العقبة نقصيرنا دنيا ما أنت هنتي داليا وقانت له كونتراكتس كي دنيا صدحات لك شاء أنت وقبضا دوا هيت من بوجسي وآخر ما نمالينيا كي كم دها جروب كيو مرايكم كدنيا ودري شريعة ما فيها ده واحد كان إلا كلام شريعة دولة كله كور ربيع ماليزيا هي محل هذا إندونيسيا هي عالم كصدحات وحياة كسمية هيتمان بوجا آخرها وأنا لطلياش نقاله جوا وين كشري ومركي دمبح الشوضية وحقرقري وحقرقري وحقور ربيع طلب بحنتي الدولة ده هو وينسيان دول كيرياني محيطي أنا قالك وصاب سنة مشاريع أنا يباهنين بين مدح وقليان بروجكتيان وحبنا لهم بيو مانيج كريان هنتي بيا ماهيان وحنا قلنا نقول بالقول ارتابوا لي حتى هذا بروجكت عقلي كصاب سنة واحتر لا إلا يمدان وانو كم بدني ترمي بولا يوحن وتوسين ترمي قاب كلا دينا نوحن رميسنا حقا نو علم نجح يقول خبير حقا نوحي ويراه هذا ودنتو كتشرتو سيدا وقيت ذا القرنين مو أهين أقومتي سي وتي دولة نمو مد دول كضعيف كعدنا فرديا انتو أما خو قبصنا كل بميسانيين أما ماكزيمم بروفيت كسمينيين انتو وحي يروق أبطال عكتا وقول بدل لا يروق قاعدة إياك أقول أبطال وحي ليين وحن الربنا فهل نجعل لك خرجا بيلي على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بريج كاردس هذا الله يكون وكل قويني سو تيت كاسي دمتنا خرج كرسينه وحكو جوابه قال ما مكنني فيه ربي خير فاعني وروح إلهي سياك خير الدندون ما هي وحي وذاقيين وبقردا كوذا موقتي دولتها الصالحة وقرآن كور ربي وحويا والدولة مدحديد وآلي بسنا سؤال كينين شغل السياسي قال وارك سيو مسؤوليات إن دتك وحلو غبطه سيدا وقال القرآن كوحي نظور رميا نبي إلهي صدري الرسول شيء الله صدري ابن آدم كإلى إصلاحيان وحنا ذكرنا سلوغنس شعار ما أنتم حيدا هذا شعارات كان حسب السياسي دي سلوغو قرطا ما هو هذا أفكار مجتمعين أنتم بكو هذا الله سلوغنس كي ستين أنبياء وحكم ده كل سلوغن توحيده اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي والموح لها ألك اللي عابد ملي دين عد كلام ولا عابده حق له عابده سلوك رزق النبي السلام وحكم في سورة الشعراء آخر نبي ولما مركا وضدك الله وقولها ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وأدوني ديك مرة منصب وحلا يداهم وح أجر لا يداه ضبع إذا مرة إلهي أنا أجرك كسوقية يعني الرسول شوح اللي يدي إلهي التجارية بروفيت كإلهي كالرادية سبحانه وتعالى آخرة دينية جنة دينية كالكون رادعية أما بشر كوحا وقبر يسال إلهي الدرتي وقفت وحلها كقابلنا تمعنا يقول حويا دك قيادات وقرآن كور رمي ملوك صالحين تو قرآن كشيء وحي هاي بدءا كدوني من أجر وحي قبنا
waxay siyaasiyiin wax maamulaya wax horumarinaya aan soo rabin maxay aan rabin dhaqaale iyo wax la mid ah bulshada ka raadinaynin sadaraad quraanku wuxuu tilmaamayaa cagsiga umamka marka la rabo in la halaago kuwa xoogaaga urursado oo ku sii badsanaya urursiga madax looga dhigo وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قرض مدبا شيء سمحي أمرنا مترفيها ففسدوا فيها وحنا أمير وقدقنا مدح وقدقنا أصحاب الترف قرآنه على مدح والتلمامي وحكم إذا كور موضة ملوك الصالحين تو قرآنه كور رمي التواضع مشاريع وين مركي فليان أي ربي بريدي سبدين أيه وقرآن كوحين ورمية نبي سليمان ومركي عرشي قبل الله كانوا مركو بغرطوية سي ويناتين مغطله كاسوا إلهي فضلي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر تلمام يا إني تهي إلهي ويرات كيسي مو أرنين أنا وعلمي دولة إياه هو المركز لقادنا إياه وحيابها المدة وقبرنا وحكم ده إن أنا بغرطوية أنا نقصد الرمى أرنين يقول لي وإلهي فضلي هي النعمة اللي سياني قال لي اتحام أيوه إن أنا إلهي ومهد عليه هي إنك لا دلتنا إلهي ببرية وحلي إله ربي وزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلهي وهنوني إن أن يكون مهد عليه أو حد قدرت عبادك الصالحين قال مدك وحن ربي ورمي ذو القرنين قوله مركو ستي بالسيء وحو البدم يله هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا كاصله مورنين هنراته يوقوا ليس ميتونه يوحوا لي كان وحويان إلهي نحرستي إن المشروع انت لك فلنه ومشروع انت لك صارنا ويجوج ماجوج تاتكاس كغحدنا ومدة نقول ليستاه وفساد كان لتوجيه هذا من فضل ربي يقول هذا رحمة ربي قال هذا رحمة من ربي تروان حريص حق ربي كتب يقول إذن قرآن حينات المام يا نبي داود وإلهي عد في عنسيي وتصبيح سنيي وإلهي مهد علنيي اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا صالحا إني بما تعملون واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير قرآن حينات المام يا أنبياء وتواضعي سي وإلهي سبحانه وتعالى يسدوا لي سي ومركا وحقبطان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنتم كفرتي إسقوا تواضع يفر النفك وفوشناد من مضح عين ولوك صار نبر كذا صار يا إلهي ومهدي علني يصوغله سوى متواضعة إذن دول كان وحكم موضة وقوة كان وحلاني مركا الملوك الصالحين قرآن كور رمي بغرطويين كحوغانها قرآن كوحو كسيفين لأن كو مسألة التوحيد إيانا يقبلان إلهي سبحانه وتعالى سياسة ديس ألا له الخلق والأمر إنه الطلبة كما دنبيستا يسويش لما وحيت المامسة إني مسألة العلم والتغنية إني هرو مرية ومدى هرو كعيدون كحرية هاي انت اي واحد كان هرو مريا صدح واحد المامسة مسألة العدالة ان عدالة لها ودسنانتا ومدادي السياسة ومداداني كمار من عدالة ده النقطة وحصوصات كسيدة ضدك الله بقيونيه ومدو وحي اي صوصارتي سيدة دي بلوغو علميه هداي وحبرشتي هداي لعقتي هداي بيتي هداي ورشدتي هداي ودوينتاي iyo sida loo simeeyay dadka loogu eegayo sidaan reer hebel iyo qabiil iyo cidna iyo gobolka kan iyo waxba toona loogu eegaynin tawsiic
للجميع أو سي عدالة كجرتا حتى مناصب الدولة سيدا لوغو عدالة ثمانية وهي مسؤوليات كوا عدالة هذا أما أنت اسكو قبيل كتين أما أنت اسكو كوحدة تين كوح لماذا ما اسكو قبيل نوع كلاه أنت اسكو كوحدة تين أما أنت اسكو قبيل كتين أما أنت اسكو الرأي كتين هذا مناصب تكون ورورين يسوه ما دو عدالة سبعين ومدة وحدو عدالة سبعين يسا أنت وحقبان كريسة وحن كصباح يسا مركا دورو مريس أنت وحقبان كريسة إذن عدالة من السمعية وحكستكو صابسا أفر وحن لاني إن لقاطو قضبك ومدى وحقابت كيدون أنه نقول لهم قولي لك رابعية ونكا سياسي أنه نقول نين بيسينسة وماشة رباه إنه العكا دالية دونك دالية وحو بابا وحو دعاه واركو قفكو حنيني مسؤوليتي ومضوا أي واركتو مسؤولية إلهي كل باع مشترين إليه طهي يقولك وقدم بيوعة دادكو مركا ألا قوليو نمعدا إلهي وعليان أني كبرين إنه تواضعان وإلهي أمهد عليان وقرتان ربي إنه أسهلي وأفدو ديني وحقواتك السماية إن شاء الله تعالى ألقى سبكو تشوشين دونا ما أنت والله أعلم بالله توفيق